ganacsiyada kale ee wadanka Zambia ay Soomaalidu ku leeyihiin ugu waaweyn waxaa kamid ah warshado waaweyn oo sameeya galeyda taas oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed maadaama ganacsiyadii hore looga bartay Soomaalidu oo ay u badnaayeen dhanka gaadiidka ayaa hadda waxa ay soo kordhiyeen ganacsiyo kale oo waxtar u leh bulshada ku nool dalka Zambia. Maxamed Xasan Gudbaaye waxa uu kamid yahay milkiilayaasha warshada Continental Milling ee soo saarta galeyda ugu badan ee dalka Zambia lagu isticmaalo. Waxa aynu ku booqanay warshadooda oo ku taala magaalada Lusaka. magacaygu waa Maxamed Xasan Gudbaaye anoo kamid ah milkiilayaasha Continental Milling Company Limited iyo Star Beef Company Limited oo ah meesha maanta aan joogno. waxaan company-gan aasaasnay sanadku marka uu ahay sanadkii 2002 waxaan ka aasaasnay ugu bilownay company hiliba oo process ah waa hilibkan process gareejirnay ka bacdi waxaan sameeynaa batuyaasha meesha la yiraahdo meelaha xoolaha lagu qalo Ingiriiska loo yaqaan slaughter houseska xoolahan soo qalnay hadda waxaan joognaa meesha centerka oo markii hilibka la keeno lagu process gareeyo ama lagu shiido ka bacdina loo diro dukaamankeena businesska alxamdulillah waa noo toosay kabacdina hadda waa inaad hami leedahay waxaan ku tala galnay oon sameeynay inaan aasaasnay company-gan la yiraahdo Continental Milling Company Limited oo ma sha Allah company aad u weyn oo maalintii soo saari karo ilaa 5,500 oo jawaan oo ah galeyda shiidan oo diyaarka ah ama 165 tan maalintii soo saari karo markay soo saarto mashiinada waxa dhan ay soo maraan ayaan waxaan u iib geynaa Zambia gudaheeda Lusaka gobolada meel kasta marmarka qaarna waxa loo dhoofiyaa wadamada nuurgan sida Congo iyo Zimbabwe iyo Malawi waa galey aad u fiican runta wadanka aad looga jecel yahay because waxa waayo galeyda wadankan waxay kamid tahay stable foodka waxyaabaha oo maalin walba ay dadka wadanka cunaan ayna u baahan yihiin oo businesskooda uusan aad u xumayn marka ma sha Allah Ilaahay waa noo qeyriyay aadaan ugu faraxsanahay meesha maanta noo marayso shaqaale aad u fara badan oo labada company hadii la isku daro ilaa 480 shaqaale joogta ayaa noo shaqeyso Soomaali ay ku jirto oo ayaguna ilaa 26 Soomaali ayaa noo shaqeyso oo ayaguna shaqada nala qabto markaan aanan meesha joogin waxa sidoo kale ay ku fakarayaan inay ballaariyaan ganacsigooda oo ay gaarsiiyaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska la ah dalkan Zambia hadda aad waxaan weynahay insha Allah inaan company-gan sii ballaarino inaan wadamo kale oo dariskeena ah oo Zambia la daris aan geeyno hadii Ilaahay yaraana mustaqbalka aan Soomaaliya geeyno markaan u aragno in aan Soomaaliya diyaar u tahay in company-yaasha noocan la geeyo oo laga helayo waxyaabaha maaragtay loo baahan yahay facility iyo waxyaabaha korontada iyo waxyaabaha loo baahan yahay markaan heli karno insha Allah inaan Soomaaliya inta geeyno Soomaalida waxa laga yaabaa inaysan galey badan cunin laakiin waa shiidays waxay shiidi kartaa burki bay shiidi kartaa burki baan soo saaraynaa inta insha Allah laga dooni lahay Dubai ama Brazil inaan burki aan Soomaaliya ugu sameeyno markay waa isla warshadan mid burki lagu sameeyo ilaa 72 mashiin ayaa taalo oo aan wax walba ay ugu safeynayo sida loogu talagalay u diyaarinayo oo aan laga heli doonin wax dhagaxa iyo wax bira iyo wax qashan aan laga helin ayadoo budaa soo saarayso nadiifa oo qoftu ay karinayso saas darteed ayaa wadankan aad looga jecel yahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wadamadan la dariska iyo Soomaaliya aakhirka inaan geeyno warshadan ganacsatada Soomaalida Zambia ayaa sheegay inay dalkan ay ku haystaan amni isla markaana aysan wax baqnin ah kaga jirin in hantidooda la dhaco sida marar badan ay dhacdo in la boobo hantida Soomaalida ay ku haystaan wadamo ay kamid yihiin Koonfur Afrika laakiin Zambia waa ay ka duwan tahay sida uu ii sheegay Gudbaaye Zambia runtii anoon been ka sheegin waa wadamada waxaan dhihi karaa ammaankooda aad u fiican yahay waxaan awoodnaa inaad ku ganacsato wax rabshadaana wax dhiba ma jiraan waxyaabaha oo qacab iyo tuuga marmar waa normal wadan kasta oo adduunka jira laakiin Zambia waa nabad meesha rabta magaalada ku luganaysa cid ku soo ataageed ama ku soo weerarayso Soomaalinimo ama ajnabi ku soo weerarayso ma jirto marka aadan ugu mahadcelinaynaa dawladda Zambia iyo dadka Zambia Soomaaliya oo inta badan aanan lahayn warshado soo saarta cuntooyinka daruuriga ah ee maalin walba la isticmaala ayaa haddana Maxamed Xasan waxa uu ii sheegay inay ku fakarayaan inay geeyaan warshad samaysa burka ama daqiiqda insha Allah waa nagu jira waana tagnay waa soo fiirinay waa soo aragnay wadanka waa soo indheynay waxyaabo badan oo aan ka fiiri karno aan ka sameey karno laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo wali diyaarayn maxay tahay waxaan diyaarayn annagu hadda warshadan aragto weyn waxay u baahan tahay koronto aad u awood badan oo ilaa 550 kVA ah
Soomaaliya weli taa kama jirto marka waxyaabo badan aan weli sugaynaa inay isqabtaan laakiin mustaqbalka haddii la yidhaahdo Soomaaliya waa meelahan ku han weynaa markee waxyaabo badan oo looga baahan yahay Soomaaliya dibadda looga keenaa jirto waxaan ku talagelaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii la yidhaahdo aan Soomaaliya ka samayno oo aan maanta ka bacdi Brazil iyo Dubai iyo aan burka looga keeno burka canjilada lagu samaysan lahay aan Muqdisho ugu samayno haddii la yidhaahdo maalintii warshadan waxay soo saartaa 5,500 oo jawaan oo galley ah taas oo loo iibgeeyo gudaha magaalada Lusaka iyo guud ahaan dalka Zambia markay soo baxdo warshada saad la socotiin ilaa gadaalay ka soo bilaabataa ilaa 75 mashiin oo kala duwan oo midba wax ku shaqaleeyayso martaa markay soo martana finishka intay ku soo dhamaataa afarta qaybood oo intay ka soo baxdaa markay ka soo baxdo waxay soo baxaysaa qayb ayadoo diyaara oo ah grade 1ki dadku cunayay ayadoo haddana diyaar oo ah grade 2 ayadoo ah kii feedka xoolaha la siinay mid walba mashiin ku taqalaha jiro oo gooni u soo saaro markay soo saartay ka bacdi ayay shaqaalahan u jeedo oo la tababaray ay meesha ka qaadaan oo meesha loogu tala dhigaan